waayahay waxaana wanaagsan meel kasta adduunka aad ka joogtaan maanta waxa weeye waa maalintii kaftanka siyaasadda haddaba cali xaraare ayaa isagu wuxuu u baxay waddanka Soomaaliya wuxuu la soo kulmay madaxweynayaasha Soomaaliyeed mid kasta wuxuu soo weydiiyey su'aala iyo labo waxa uu markaa isagu malaynayo dadka Soomaaliyeed inay xiiseynayaan questionada iyo su'aalaha madaxweynayaasha mid waliba qaab ayuu ugu jawaabay cali xaraare kaftankii maanta aad ayuu qosol badnaa waxa ku jira barnaamij aad u fiican oo ah barnaamijka ku tagtay Soomaaliya ka waran arintaas waxaa ka bilowday Yaasino magaalada Muqdisho haye waan u tagay xafiiska madaxweynaha haye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haye dowladda federaalka haye xilliga waxa la fadhiyay ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre haye marka hal su'aal baan weydiiyay oo ku saabsan amniga haye marka waxaan weydiiyay amnigii wadooyinkii oo dhan baa xidhan haye baabuur ma mari karto haye dadkiina way lugeynayaan haye waxaad sheegteen in amniga aad ku ilaalinaysaan in qaraxiyo dhibaato ay dhacdo haye waa arrin aad u fiican oo aniga lafteeda aan u bogay haye laakiinse sidee ku dhacday iyadoo jidadku ay saa u xidhan yihiin in baabuur waaweyn ay idiin soo gasho wasaaraddiina arrimaha gudaha sax dabeetna ay qarax uu dhaco haye marka madaxweyne su'aasha maxaad kaga jawaabaysaa haye madaxweyne intaanu jawaabin waxa ii jawaabay Xasan Cali Khayre xasan baa ku jawaabay ra'iisul wasaaraha haye oo koorkiisa intuu hagaajisto aad isu mashquulinaya oo dabeetna hadal xoog waaweyn leh oo faraha taagtaagayo ayuu kugu jawaabay oo khudbad oo kala haye ayuu su'aashii kama jawaabin khudbad dheer buu galay waxaan nahay dowladda ugu fiicnayd amniga xaqiisa inaanu ilaalino waxaan idin sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed inay gacan isqabsadaan in dowladda la shaqeeyaan in jidadka aad xidhnay in ay keeneen hakad inaanu baardo marka hadalkii baan sugay haye markuu ka soo go'ay ayaan haddana سؤال لبعض ودي واحد كوري مدحويني أنا ودي ولي فرماتي وشيله كلن كي أديك فيصل على ورابع فيصل بعصدي إن أذكرنتان مسألة عصدي إن أذكرنتان وهي فيصل وحيلي مدحوينها عن عصدي تبي تبى مركبة كانوا فرماتي جوابي خير جوابي حيلي خير ده جوابي مدحوينه ما عصدي فيصل أي عصدي توا حكوا عداني حتى مدحوينها دياردي أيها كسر تكتي 6 ساعات ayaa maarta u fadhiyay airport waayo shir aan diyaar u ahayn oo hoos gelisa ayaa arinta oo keenay dabeetana inta ayaa waxaan jaale madaxweyne jaale khayran weydiinay khayr su'aasha weydiis waxaan madaxweynuhu ayaan dal laba su'aal weydiiyay ay jawaabeen madaxweynuhu miyaanu hadlayn marka wuxuu igu yiri madaxweynuhu arbacadu hadlaa ما أنتوا كلام هذا مدحون. ما أنتوا كلام هذا. هي. سنين يتلاذا يسبت وحا. ما هذا. هي. هذا دول شنو هذا. 40 يمو. 4 صلابو. 4 سؤال تشعلي. هي. هل كان كصباح. هي. بيدا بنتي. هي بيدا شريف حسن. أيام نتي. هي. شريف حسن وحن بيدا مركنتي. ما تشوفه بقى. بيدا بعد وقت تكويدي. هي. أيام يقول قاتي إن أنا هلا. شو بيدا بو. بيشي ولا بتشري ماذا. شيخ شريف هي شريف حسن باي شريف حسن هي وحمد إنه مقدسة كيا هي مدحويني هي مقدسة سكفر ديا ماكو صاق علي أيام دولة دي سي ويديو حكوي أن وزير قارمها قدوم وكما هي الدولة ده هي وحيقولي يران أبتوها هواي يا يران أبتوها هي واي وزير كاجا عفماتك وكما أدر لحمي أنا هيبل أدر لحمي أنا هي وحويدي وزيرك وحبرشد وكما وحيل وقبر عن أبتوها يدنا قبر عن أبتوها هي واي marka Sharif Xasan wasiiradiisa magacyadooda kala garan maayo laakiin wuxuu garanayaa wuxuu yahay isaga wasiirku waxay siiyeen ayuu garanayaa wasiirka madaxtooyadu waa kuma nimaanu ilmaadeer laxmeenahay waaye ayaa dhalada ku leeyahay isagina waan ka tagtay marka madaxweyne Axmed Madoobe badaadi yaksmaayo madaxweyne su'aalaad weydiisay madaxweyne maxaad qabatay wadanku qabatay ayaan weydiiyay wuxuu yidhi intaad su'aasha ay weydiiyay dekada ka tago soo arag dekada kismaayo dekadii baan tagay بس الحوش كدوفيسا وديها بس مراكب الحوش هي شغاكا كما سعودت هي الحول بك سعودت الحوش ودنك اوردن ولا دوفينيو ايام ماشي قلتي هي وان كل وضوح كوري مدحويني الحول باسوارك ماشي الحول باسوعتين الحوش هنا انفايرمنت ديغانكي اي دي كو سمينسا يعني maxaa la yiraahdaa ay baabinaysa dhirtii nabaad guur bay sameeyay marka wuxuu yiri maxaad u jeedaa baan ku yiri oo ugu weyn dhuxushan ka heshaan waayahay
وحول دولة فدرالك ها أيام كل حمايننا يا وحوش عنده فينو دولة فدرالك كل حمايننا هي وحول سيدا وحمايننا هي وحول قرقارك الدنيا أي سيسا دولة فدرالك ها وحبنا قبل سيسا قرقارك وحبنا قبل سيسا كسمي وحكم سوقارك وحوش النوى كحنا قال هي مركا أنا ونوح الدنيا ها ما كحنا إنه على إسكو صار أي دي أما قرقارك نفسيا هي أما الحوش ده أمر هي أحمد مدوب تاسكو جواب أحمد مدوب أنا وان كتك أحمد مدوب هيرشبيل ها أيان تيجي هي هيرشبيل هذه هي الحين محمد عبدي ها أيان هيران ولا كدندور ودندنت ها هي ما تشوفه هي أجاي dad kii baa inay abo yiri ها wariyii u horeeyay ها ee u yimaadeen wareys ma ka qaaday baad ninkan miska noo yimaado دوما تفضل ديك هي mar iyo mashaariic waxa iska dhig ها وريان بوي ما markaan arkay ninkii meesh ka baqay ها ayaan dadkii weydiiyay waxa ku yiri ها wana horta ninku magaciisa هي magaciisa waa dadkii nin oran karaya maxamed cabdi waare ma jiraba midba mid weydiiyay magaciisa ma laga yaqaan qaar baa waare leh هي laakiin magaciisa ma garanaya هي nin shaqadiisii ka maqan ها oo gobolkiisii ka maqan oo aan la garanayn magaciisii ka maqan هي ayaa ninkaan u arkay هيرشبيل هي waa ka tagtay xaaf baan u tii xaf badaade iyo galmudug هي xaf maxad weydiis idinka ahlu sunna ها xagee isla maraysa maan ku aliyo sun هي wixii aad qaybsateen ها xagee maraysa arrimihii ها weli ma dhammaano ها waa qabyo وقبيو هي waxaan ku weydiiyay madaxweyne ها wasiirka waxbarashadu ها وكم هي tani nin la fadhiyo wuu duxuuyay ها horta waxbarashada ayaa loo qabsanaa هي marka ninkii baa yidhi ها madaxweyne weli hawshu wuu ku jiraado ها waa qabyo tani wuxuu calo wasiiradu waa qabyo wasiiradu waa qabyo هي ahlu sunna hawsheedu waa qabyo هي dekadii hoobiyo xagee maraysa xaafo wuxuu waa qabyo waxaan jidkii hoobiyo isku xidhayay iyo kalkacayo wuxuu waa qabyo waxaan ku madaxweyne dawladii waa wada qabyo iyo horumarkii iyo wixii dhan baa wada qabyo meesha maqaad uma dee loo qabaa maxaa ka socda meesha haye kulay wasiiradii madaxweyne waa wada qeylaya marka qabyaa kaga tagtay qabyaan kaga tegay haye waayahay haye waxaan tegey meesha la yidhaahdo puntland هي عدولي ها القصوح ودي ها تكرق دقال بني كفر دقال بكفر ها وصل اوغسنا ها واحد دبال دقيسان ها سنة جوردي سجلت جوردي كسورتي markii ay Puntland la asaasay ha Puntland ku dayo idinku dagaal ku jira ha sidee aad u galeysaan in dagaalkii wuxuu dabaaldega waa sameynayna haye waxaan ku ciidamadana ha see yeelaysaa haye wuxuu ciidamada ha qolooyinka reer bariga iyo ayaanu kaga sii tegnaa meesha kuwaas sii joogaya inteeda kale ee garow ay gaalkacay iyo qardho waa baadheena waa soo baadheena bisha soo socda bishan August ku dayo Puntland haye dagaal waa ku jira marka dagaalku wuxuu hadda miyaadan daawan klibkii aniga iyo nasteexo indo ayaan kula soo hadlay buu meesha Nairobi way ii ballan qaaday inay ka tunto haddii sanad guurida warninka waa dadaalayay haye baadhigaasi kaga ekaatay dabeetana Muuse Bixi Muuse u tagtay haye Muuse Bixi wuxuu ku yidhi Muuse Bixi waxaan weydiiyey Muuse dagaalkii Brussels shirkii iyo kulankii فيصل الورابي هي يقور هي وحول شركة بروسلز أنا حقيقة وحنو لا مديها شركة بيش قرحج شركة بيرتب قرحج بنو لا مديها شركة هي لبض الشربة قرنوا السمالة أي اللي فوق قرنوا السمالة بكسور كذا أنا ولد بيلما ويدين شركة بروسلز ويدين وحنقولي فيصل على الورابي حكومة هان ما يديك هالدري موسو بس يسوي إسكوتي هي شركة بروسلز هي وحولي أنا ما نادر هدي بيش قرحج أنا يدري قرحج فيك قدك تموسي هي سؤال لحد ما ودي وحكولي أحمد مري أيا ليش شيء إن العسنتي وكادي ودي ذا أسفادي وكعذر دارتي هي يعني ردي ذا وكعذر دارتي الحكومة يمكن هي أحمد مري حين أولاد باجرت هي وحولي شركة قرحج نلكم هوري أول هشيس باهي المصدي ما تعيس تروح هذاك مدحوينه إني هلكاس كي قدكت تكرق بين مصادق هذا تكرق ور ما هيو كل حجز باوريري دبتنا على خليف أيا نوتي هو أساسي وحنكوي على خليف باوتكت هي على خليف حكوي مدحوينه خاتم وحنكوي على خليف وحنكوي دي شيسكي خاتم يسمى حقه مري هي وحيلي ولي وحلوها أنا هيستا بنتلاند وأنا كسر كرناك إذا أنا بنتلاند إسكلي حنو هشيسكي ومسعوري تبتنا يا بنتلاند وحرقيس جيو وحنري أن بنتلاند أنا كم ويدين بنتلاند لكن هشيسكا إذا كي السمالة ما وضع قشيت
wuxuu jawaabay annaga iyo Puntland abid war ala kale Puntland ka dhigtay marka waxaan ku yidhi madaxweyne haddii adigana ay kaaga dhigan tahay Puntland madaxweyne Muuse ay kaaga dhigan tahay garxajis sidee labadiina isugu iman kartaanoo wada hadli kartaan dantiin wada hadli karaysan ilaa labada arrimood la xalliyo dee malaha labadiina isugu iman kartaan haye dabeetana markaan arkay meeshii aan ka yaabay jigjigaan tagtay wariyaa maanta waa fogaatay haye madaxweyne cabdi maxamed cumar ilay baa u tagtay ayaan u tagay haye waxaan ku yidhi cabdi maxamed waxa aan la yaabnay jigjiga iska daaya weliga iyadoo mudaharaad lagu samaynayo maanu arag haye maantana jigjiga dhexdeeda lagu mudaharaadaya waxay leeyihin cabdi maxamuud down sidee wuxuu haye miyaad soo yaro jilcda haye wuxuu yidhi maya niyow horta cadowgayga waxaan u haystay beesha ogaadeen jeel baan u sameeyay la ogaadeen ku xidhan halkaasaan xiliyaha kabadkii qaban jiray waxaan isla hadaasi dabeeto waxaan islahaa cid kaloo kuu soo bixi karta ma jirto haye ragga meel baa iska dhigay meeshaba ma dhigan jid waaqba halkaa kuu soo bixi waradaga jid waaqa u gabatay jid waaqba hadda ka fadhiyaa xaggii miidiya xaggii haddii darbiyada ka soo dhacaya haddii ku jijiyo gudaheeda qabri bayaa hadiis warwaan yaabana hortiisa oo qaya ka reebadayga haye marka nimanka odayaasha ayaan taagsiga laa ayuu runtii aad uga cawday haye barnaamijka kaftanka siyaasadda intaa quran maaha qaybo kale oo siyaasadda Soomaaliya ka tarjumaysana waa wani haynaa isagoo isu dhan ayaan u soo gudbin doonaa may cali aad iyo aad baad mahadsan tahay booqashadaada fiican oo aad ku tagtay Soomaaliya iyo madaxweynayaasha la soo hadashay intuba dadweynaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa marka dambe imaad isla hadda saacadaha soo socda iyagoo kaamila aad ka helaysid barta internetka iyo waliba Facebook intaba aad ka heli doontaan share gareeya insha Allah waana mahadsantihiin barnaamijkan yaasiin dadku ha ogaado inuu yahay kaftanka siyaasadda waa ka dhacsiin iyo moodisiin qaar baa xoran doonaan oo goorma u tagay madaxweyne Muuse Cali marka barnaamijku waa kaftankii siyaasadda ana walirina serious oo qaadan baasha ka daayay Soomaaliya waxa wari serious marimaad khusashaan baa la rabaa siyaasadda oo saxin ku sheegino kaftama Soomaaliya kaftan buu u baahan tahay dagaal uma baahna qosol buu u baahan tahay walaaltinimo u baahan tahay ehelnimo u baahan tahay isku soo dhawaada aad iyo aad baad mahadsantihiin